السلام عليكم. إن شاء الله محمد إن شاء الله إن شاء الله محمد إن شاء الله والله وذاقنا ونشهد الله السلام عليكم شوينت الصوماليات وان إذن سلامي ملكستو الدنيا دعالة ودعات كتوكتي Soomaaliya doorasho ayay galaysaa diyaaradayna u kala raacdo bishii Sebtembar waxaa la kaxaystay 7 nin oo walaalahaya waxaana la dilay wiil yar oo ay dhaleen mid kamid u dhalay 4 mara oo wiilka 4 nin oo wiilka yar aragteen ee qoriga sidaa gaalada ugu shabaaxayso waxaa dhalay walaalahay 3 walaalahayna waa la kaxaysta 4 ka dambaysana waa la kaxaysta Soomaaliya waxay galaysaa doorasho diyaaradaha la kala raacay waa la dalxiisayaa waa la wada qoslayaa Soomaaliya waxaa dowlad loo samaystay ama loo dagaalamay ama xorriyad loo dhistay ama calankan loo samaystay inuu difaaco qofka Soomaaliga calanku waa inuu dadka wada difaaca dowladdu waa inay dadka difaacda xaq ma ahan baarlamaanka Soomaaliya waxa ay ka galeen godob aad iyo aad u weyn ayay ka galeen familigayga ayay ka galeen walaalahay waa la dilay gaalaa dishay wiilkaan eedada waa public ayaa xabad askar Kenyaati sidaa ula dhixeen adduunka dhan waa laga daawada arrinka asaga waa human right abuse sharciga xeerka adduunka ka yaala ayuu burinayaa wiilka walaalkay dhalay la dilay iyo walaaladay Kenya borderkeeda laguma dilin gudihiisa waxaa loogu yimid dalka Kenya dalka Soomaaliya magaalada Elwaq tuulo yar ku taala ayaa lagu dilay oo gudaha Soomaaliya waliba 20 kilomitir ka soo xigta dadka waa Soomaali waa dad masaakiin oo gacmo maran walaalahay waa dad xoolo dhaqato ah waa dad aan shughul ku lahayn qori iyo shabaab iyo dowlad midna toona dowladda Soomaaliya indhahooday ku wada arkeen
shalay waxaa ka wada hadlayay xildhibaan sakariye iyo soomaali kayba iyo laba nin oo kale oo aanan garanaynin. xildhibaan sakariye aniga soomaalinimana way noo dhaxaysaa, waa xildhibaan soomaaliyeed, dhalashana way noo dhaxaysaa. xildhibaan sakariye qalbi dhagax oo ahaa jabhad soomaaliyeed oo aad u lan jiray shacabka reer Wardheer iyo reer Shilaabo oo aan anigu raabtigay ka dhashay markii oo ah Soomaali Etoobiyaan markii dowladda Itoobiya ay ka haysatay oo ahayd waddanku sitiisan ka yahay laakiin nationalitigiisu Soomaali ahayd. xildhibaan sakariye wuu ka ololeynayay dowladda Soomaaliyana, baarlamaanka Soomaaliyana way ka ololeynayeen, way ka gurmadeen, way ka kaceen. isla markiiba mooshin bay ka keeneen, isla markiiba dowladda Itoobiya lala hadlay, isla markiibana waa laga soo daayay. maxay tahay marka uu doodayay Soomaalida Itoobiya hal shakhsi oo ah marka uu doodayay oo waliba liyo booliis oo ah jabhad soo ah muslim dhiigi qaba xildhibaan sakariye sababta xildhibaan sakariye soomaalinimo marka la yiraahdo wuxuu fadhiyaa baarlamaan Soomaaliya, wuxuu matalaa calankani meesha uu ka taagan yahay iyo dadka uu taagan yahay. haddii dhalasho la yiraahdo xildhibaan sakariye dadka gabadh lagu laayay, walaalahay gabadh lagu laayay oo lagu kaxaystay oo uu tilmaamayay sidii loo laynayay. xildhibaan sakariye kama uu guban, kama uu tacsiyey, kama uu hadlin. dhalashana waa u simanna, soomaalinimona walaalahay gada markii walaalahayga gada lagu laynayo iyo carruurtan eedada oo xabadda lala dhacayo ayuu mas-uulka ayaa u fadhiya baarlamaanka jigjiga ma fadhiyo, baarlamaanka Muqdisho fadhiya. ma garanayo godobta reegada ka gale, ma garanayo waxa noo goonida ah, ma garanayo waxaanu tirsanaynaa godob weyn. Soomaaliya hala difaaco. aabbahay dagaalkii 77 buu galay, walaalkay dagaalkii 77 saddex bilood yu jilab cunahayay inta lagu dhaawacay meesha la yiraahdo gobi oo door cidlaa laga soo cararay curadka aabbaha. Soomaaliya hala difaaca marka la dhaho reegado waa dadka kowdha, waa dadka u iliya Soomaali, waa Soomaali dadka gada degano. baarlamaanka Soomaaliya doorasho ayay ku lalamayaan, dowladda Soomaaliyana doorashay mashquul ku tahay. laakiin shacabka Soomaaliyeed ee gaalada Kenya la tagtay qalbi dhagax waa loo ololeynay, waa loo orday, waa loo qaylinay, waa laga soo dhigay gaaladii. 7 walaalahay ahayd gaalada way haysataa, way la maqantaa. wiilka ay badliga fiidyowga ka duubaan oy xabadda la dhaceen oo walaalkay dhalay lagama hadlin, baarlamaanka Soomaaliya kama hadlin, dowladda Soomaaliya kama hadlin, madaxweynuhu kama hadlin, baarlamaanku kama hadlin, wasiirka amnigu kama hadlin. waxaana laynayaa ma aha Soomaali, waa dowladda Kenya oo xuduudkayaga noogu soo gashay. weeris soomaalinimadii dowladdani yay u shaqaysaa, baarlamaanku yuu u shaqeeyaa. haddaanu aniga idaafacayn oon walaalaha idaafacayn oon ummadda Soomaaliyeed una daafacaynin, baarlamaanku yuu u shaqeeyaa. 7 nin oo Soomaaliya maqan, ilmo yaroo Soomaaliya geel la joogo ayay Kenya xabad intay ku rushaysay miidiyaa soo dhigtay. dowladdii madaxweynihii u sarreeya kama hadlayo, wasiirkii amnigu kama hadlayo, baarlamaankii kama hadlayo, aqalka sare kama hadlayo, aqalka hoose 3 nin iyo oo Jeesow ku jiro ayaa ka hadashay xildhibaan Jeesow. baarlamaanku ma xildhibaan Jeesow kaliya? xaggee arrintani iska qaban la'da?
وروح صومالي النمو وسعليا وقادلة ولا راي وحنا ويليا ولا راي قالوا وتكتي ما لا رأيي شعبك برلمانك الصوماليات دولة الصوماليات قد صومالي النمو ويليا ما تشاسو كليا كتيرة ما تشاسو يا لماني لو كنت ستكليا كتيرت واي قلبي نجح او إيطاليا 6 سنة او صومالي إيطاليانا لازم مشغولي واي انت أرد لارك اللي أقول لك واي برلمانك يا ورياو يا ميريو إنسايستين مياري نفتقف كالصومالي جاي قيمة إسكولاين أنا إسكو قيماين مياي صومالي لك لو نكسنتا محايتا هاي سبابتا ولا راي تضمنن او ولا راي أياي كايا خايستي oo la maqata wiilkoodi yay xabad ku dileen oo fiiriyow ka duureen oo midiyaha yaallo waay miyaanan soomaali ahayn miyaan gado soomaaliya ahayn miyaan shacabka reegado soomaali ahayn ma waanan anigu soomaali ahayn ma waan walaalahay soomaali ahayn maxaad markhaatiya u baahantihiin waa kan idin hor yaallo wiilkii walaalkay oo la dilay oo xabadda askartu saarana kor taagan tahay oo shalay xildhibaan sakariya taasaa u tilmaamayay war maxay tahay sababta qalbi dhagax laa buunbuuninayay oo soomaali etoobiyaana calankan soomaaliyuu ka taagan yahay calankanaa gada ka taagan gado waa soomaaliya waay shaksi soomaali etoobiyaana baarlamaanka soomaaliya sakan uga keenayeen mooshin 8 qof oo soomaaliya ah ayaa lala maqan yahay 7 lala maqan yahay caddayn baa la dilay waddan shisheeyaa ku soo duulay diyaaraha ayaa hadda lala kor taagaya waay aan looga hadlaynin miyay soomaalidu kala qiimo badan tahay miyay soomaalidu kala fiican tahay calankani yuu ilaalinayaa haddaanu aniga i ilaalinaynin aabbahay milatari buu ahaa dagaalkii 77 wuu galay raggii golay iyo kaanaa marna ka dagaalamayuu ku jiray walaalkay cismaan bawdanaa lagu burburiyey 3 bilood yuu duurka ku jiray oo laga soo cararay uu jilab cunayey uu geed hoostiis uga dhimanayaa maxaarada maantana kenya ayaa soo gashay gudaha soomaaliya oo shacabkaygii diyaarado ku duqaynaysa oo walaalahay ka haysatay 7 nin oo walaalahayaa maqan oo aalwaaq laga ka haysta wiilkii walaalkay waa la dilay waydinka miiriyaha ka daawanaysin sakariye waa ogyahay shalay waa kii tilmaamayay sidii loo dilay siday ku dhacday in qalbi dhagax laga doodo inuu baarlamaanku ka doodo in soomaaliyu ka gilgilato noo sheega haddaanan soomaali ahayn noo sheega dabanahaan joognaa gobolkaaga waa goosanaynaa maraykan baan u yeelanaynaa gooni baan u goosanaynaa intaanu kenya kaga saarno wiil iyo gabar ayaanu goosanaynaa amerikaan baanu nahay oo halay odhan baanu degannahay waxaanu degannahay canada waxaanu degannahay britain waanu goosanaynaa jubbaland wiil iyo gabarna jubbaland wanafar bay noqonaysaa haddaan soomaaliyana barotagti garaynaynin waa inaan goosanaa waa inaan u yeeranaa maraykan wiilashayadu waa wada american military waa canadian military waxaanu leenahay awood fara badan ma nihin ma qalbi dhagax ayaa ka qiimo batay oo soomaali etoobiyaana oo jigjiga u dhashay miyaa ka qiimo batay ay baarlamaanka soomaaliya u ooleeyeen mooshin ka keeneen 7 walaalahayu ma maqan yihin wiilkii walaashayna waa la dilay walaalkayna waa la dilay fiiriyowga meel walbuu yaallaa waa kii xildhibaan sakariye shalay tilmaamayey oo dhahayay saasaa loo dilay ma aanay qarsanin madaxweynaha dalka u sarreeya maxamed cabdullaahi
farmaajo waxa uu isaga iyo ninka wiilka yare walaalkayna la dilay waa wada Soomaali waa isku dad baarlamaanka Soomaalinimo ma loogu kici waay war islaamnimo ma loogu kici waay Soomaalinimo ma loogu kici waay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qalinka u dambeeya wadanka adaa iskale waad ka aamusantahay sideeda nin ee walaalahay toddobada walaalahaya iyo wiilkii walaalkay dhalay ee loogu soo galay anaa madaxweynaha Soomaaliya gado raalli baad ka tahay waayo waad ka aamusantahay baarlamaanka Soomaaliya 300 iyo intaasoo xubnood baatiin waad ka aamusantiin qalbi dhagax waad u gubanayseen mooshin baad ka keenteen ma madaxweyne nacay baa idinka ahayd ma maraaxan eelays baa idinka ahayd miyaanay reegado ninka Soomaaliga Itoobiya jigjigaa ilaalisa dowlad iyo dal kale u leeyahay calankan inuu gada ilaaliyo kanaa gada ka taagan calanka Kenya kama taagna kan Itoobiya kama taagna kan kilinka shanaad kama taagna baarlamaanka Soomaaliya gadigin ma maraaxan ma naxartiin gadigin ma naxaybaad madaxweynaha u qabtaan ayaad uga hadli waydeen walaalahay toddobada nin la kacaystay iyo wiilka walaalkay ee la rushaynayo Soomaali wixii bartaa dhigay ayaad wadiin anaa dumara waxa ka urdi waay oo ka seexan waay yaa ka mas-uula Jubbaland yaa ka mas-uula Soomaaliya yaa ka mas-uula gado dowladdu wargado waanu goosanaynaa wallaahi sidii Somaliland baad na barbaryaysiin wallaahi waanu idinka goosan wallaahi waanu tashan Jubbalandna Masar wa nafar sakan baan ku goosanaynaa hadduu madooba Kenya keensaday Maraykan baanu keensanaynaa dalka annagaa iskale maankaa la fiirin madoobe iyo Kenyaati midna boodarka ma soo geli karo warjooga dowladda Soomaaliya haddayd raalli ka noqoteen dilka walaalahay maxaa Soomaali ku ah Soomaaliya waa inaan ka go'naa Soomaaliya dowlad ka weyn waa inaan hoos galnaa alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin maanta wada baasaboorro kalaan haysanaa wada militari kalaanna waddankayaga Shabeel Duur gaas baa bartaa ka jooga weligayaga bad baanu leenahay Kismaayo annagaa iskale been annagaa iskale ninka Kenya Itoobiya ka yimidna iyo jabaadana waanu saaray haddaanu soo jeensano wallaahi waa bilaahi Soomaaliyana inayna loo babax dhigi karin inaanu ninkii jigjiga ka yimidna Jubbaland nagula dagaalami karin dowladda Somaliland baad shir la galaysiin ballan baan idinku qaaday Jubbaland inaad raadisaan ballan baan idinku qaaday dabaad damin weydaan inuu ka dhaca haddaynaana ilaalinaynin Kenya wadamo ka nasabsan yaanu wax ka nah haddaanan Maraykan soo dejin oonan yuhuud soo dejin ballan baan idinku qaaday oonan Kanadiyaan soo dejin ballan baan idinku qaadnay Carab iyo Kenya iyo Imaaraat haddaanan yuhuud iyo Maraykan Jubbaland soo dejin Kenya taasii taagnaado waxaan halkan kala hadlayaa waxaan halkan fariin uga dirahayaa beesha mareexaysadi ee aan anigu ka dhashay ama gabadha garaada ama mudugda garaada laga bilaabo saacadan waan ka go'aynaa Soomaaliya ma nihin Soomaaliya waanu ka go'aynaa Jubbaland Soomaaliya ma aha dekad qadiya oo muhiima ayaanu leenahay Shabeel Duur oo gaaska habeen walba laga seexan waayey ayaanu leenahay beeraanu leenahay annagaa Kanadiyaan soo gelinayna annagaa Maraykan keenayna
go'naa soomaaliya mareexaan meel aad joogteen soomaaliya shuftayna qorta soomaaliya ma nihin soomaali calankaniina ma ilaaliyo calankaniina ma difaaco soomaali waan ka baxnay 7 nin oo walaalahayay gaala kaxaysata wiilkii walaalkay sidaasaa loo dilayaa baarlamaanku kama hadlin dowladdu kama hadlin ninka u sarreeya kama hadlin soomaalinimana looguma hilin muslimnimana looguma hilin daaroonnimana looguma hilin ninka kursiga u sarreeya oo u dhashay mareexaan nooma hilin soomaali waanu ka baxn laga bilaabo saacadda annagoo soomaali ka mida markayna laynayaan muslim iyo mareexaan baa dhab ah waxaa imaan doonta waxay nagu kalifayaan inaan wax badan aanaan wadaagin maraykan waa inaan u yeeranaa israa'iil waa inaan u yeeranaa intaba I can finish that we can finish that we are the people in Jubaland Israel sakan bay hub nagu siinaysaa sakan bay Kenya ku amraysaa Ohio ayaa xarunta maraykanka ah Canada ayaa nimanaayiin ku joognaa Ingiriiskaan ku joognaa Holland baan ku joognaa sida ugu dhaqso badan Israa'iil iyo maraykan inooga sooxya carabiya islaamnimadooda xagga dhig islaam wax loogu hiliyey ma jirto soomaalinimo xagga dhig saacaddaa laga bilaabo Jubaland gun kenyaati ay kastaane waa inaan Israa'iil keennaa waa inaan maraykan keennaa saacaddaa laga bilaabo soomaali ma nihin soomaali kama sugayna kaalmo soomaali kama sugayna islaamnimo nooguma hilin soomaalinimo nooguma hilin calankan aan wada leenahay nooguma hilin calanka Israa'iil waa inuu Kismaayo ka babadaa waa inuu Gada ka babadaa waa in shabeal duur gaaska maraykanku noo soo saaraa saacaddaa laga bilaabo waxaanu nahay soomaali Israa'iiliyan gobolka Gado waa soomaali Israa'iil waxaanu nahay soomaali Israa'iiliyan baana dhaaraad baana la dhalan soomaali baana la dhalan muslimnimayna noogu hilin saacaddaa laga bilaabo Jubaland waa soomaali Israa'iil waxaanu nahay soomaali Israa'iiliyan waxaanu ka soo dhunnay dalka Israa'iil markii Israa'iiliinta la laynayay ayaanu nimid we have nothing to do Somalia we have nothing to do Arab iyo islaamnimadaba ha isku haysato Israa'iilna waa noqon karnaa muslimna waa noqon karnaa we have nothing to do calanka buluuga ah kan kurid garbajka haddaan gubaya waxaan halkan fariin uga dirayaa beesha mareexaansade laga bilaabo saacaddan waxaanahay yuhuud waxaanahay reer bani Israa'iil muslimay oo dalka ku soo dhumay waxaana laynayaa waa gaalo waa Kenya waxaa noo keenay waa daarood saacaddaa laga bilaabo mareexaansade sada Israa'iil baana ma nihin sada daarood karaas sidaa u saar karoos sidaas u saar karoos u saar soomaalinimadii qalbi dhagax loogu sacabaynayay ama aan laygu sacabaynin kaarbadka kurid soomaali Itoobiyaankana loogu kaalmaynayay anigana walaalahay lagu qaatay kurid kaarbajka kurid wiilkan eedada u ahay ee saa kenyaatigu u damqay calanka aan loogu hilin kaarbadka kurid saacaddaa laga bilaabo calanka Israa'iil inoo daabaca calanka Israa'iil ma nihin daarood waa been ma nihin mareexaansade sada Israa'iil baa nala dhahaa sada Israa'iil ayaa nala yidhaahdaa gobolka Jubaland baan degana waa inaan Israa'iil kaalmo weydiisanaa waa inaan maraykan weydiisanaa dhalashayadiyadu waxaanu nahay mareexaansada Israa'iil waa soo dhumay waa ka soo dhumay asal waxaan ka soo jeednaa Israa'iil waxaanahay reer bani Israa'iil meeshan ku soo dhumay
oo soo muslimay soomaali ma nihin daarood ma nihin waxay yihiin ma nihin islaamnimadayada waa haysanaynaa laakiin reer bani israa'iil baana carab baanaan shuqul ku lahayn waxaanaan shuqul ku lahayn soomaali waxaanaan shuqul ku lahayn mareexaan sada israa'iil ayaanuna xildhibaan sakariye waa nin laylkasa ah waa nin tanala daarooda waa nin tanala daarooda shalay markuu sheekaynayay uu ka hadlayay Soomaali TV saasuu jiifi iyo nimankii la fadhiyay saasay u yaarayeen qalbi dhagax markay kacaystay waddankuu ka dhashay markuu kacaystay iyo ilay tii la ogaabay dhigeen tii la ogaabuu dhigay xildhibaan sakariye waxaanan u malaynayay inuu laylkasuu fayow yahay oo waxaa nala dagaalayaa majaartaankii ogaadeenka ay kaliya yihiin ayaan u malaynayay markii qalbi dhagax la kacaystay saas ayuu xildhibaan sakariye jiif iyo joog u diiday saasuu miiriyaha u fadhiyey maanta 7 walaala ayaa la kacaystay 11 sano ayaa dalkayga Kenya duqaynaysa Soomaali islaamnimo la igama yilin walaalahay 7 Kenya la maqanta matana Soomaalinimo ka sugaa saacadan laga bilaabo reer ahaayo community-ga Israel u taga inaga register garaya ana hadda tagaya kan ku yaala magaaladayda saacadan laga bilaabo mareexaan Soomaaliya waa 2 milyan 3 milyan 4 milyan 4 milyan oo reer Israel ana gobolka Gado iyo gobolka Jubaland annaga leh reer Israel baana kun dhashay oo kashina ayaa nalaynaysa Soomaalida kunta ayna way nagu fiirsat taasi waxay idin cadaynaysaa horay waxay u yiraahdeen muslim iyo intii madax madow waa markay nalaynayeen 91kii yay Soomaaliya nalays oo daarood nalay oo ogaadeen nalay oo majarteen nalay oo hawiye nalay oo cid walba nalays saacada laga bilaabo Soomaali baarlamaankii qof jaasow ayaa jira wax noo hiiliyey reer bani Israa'iil ayaanuna mareexaan sada Israa'iil baana mareexaan sada Israa'iil baana Soomaali baanaan ahayn shuqul baanaan ku lahayn Soomaali baanaan ahayn daarood baanaan ahayn shuqul baanaan ku lahayn waxaanu nahay reer bani Israa'iil waxaanu nahay waa saaduna sida reer bani Israa'iil loo barotagta gareeyo oo dhulkoodii loogu celiyey waa in dhulkayga loogu celiyaa waa in guntu dhashay ee Kenyaatiga anu raadsanaa wax nooga hiliya Soomaali nooma hilin idinkaga baxan daarood nooma hilin idinkaga baxan muslimnimo nooguma idaan hilin muslimnimadayada umada badan baa muslina Soomaalina aan ahay Jubaland Allah nagu beeray laakiin saacada laga bilaabo mareexaan ama mudug jooga ama Gado jooga ama Mareykan jooga ama dabad jooga ama Afrika jooga mareexaan sada Israa'iil baa la dhahaa waxa naga dhigayna waa wiilka walaalkay dhalay mareexaan sada Israa'iil baa la dhahaa international lawga ayaa yahuuda protect gareeya oo ilaaliya walaana daarood la dhalan walaana nahay cadow nooga weyn ma jirto daarood cadowga noogu weyno waa daaroodan leenahay cadowga noogu weyn Soomaaliyuna way ku raac waxaan u malaynayay inuu laylkasuu dhaamo Sakariye markii qalbi dhagax la dhiibay jaagu jiif 7 walaalaha markii la kacaystay wiilkii walaalkayna sidan loo dilayo Soomaali waa fiirsatay way ku faraxday sidii yahuud la dilay yaa ugu farxeen taasaa idin cadaynayso farmaajo waa Soomaali anaguna yahuud baana farmaajo waxaan isku nahay ma jirto shuqulku ma lihin wuxuu madaxu yahay buu yahay wuxuu ilaalinayaa qalbi dhagax buu ilaalinayay oo madaxweynaha waa ninka Soomaali Kenyaatiga Soomaali Itoobiyaanka dawladdiisii ashatay ayuu waa
kama taagnaanayo walowna ka taagnaanaynin walowna gurigayga ka taagnaanaynin way fiirsadeen dowladda Soomaaliya annaga lama difaacdo annaga lama ilaaliso dadka iyagu waayeen 11 sano oo ilaalinaya midoo la leeyahay dadka iyaga kaya nagu soo duushay dalka iyaga haysata dadka iyaga leeynaysan marreexaan sano Israa'iil baana ballan baa lagu qaaday right now registrationka hearing Canada inaan ka bilaabo rabbin Israa'iil baana calanka Israa'iil gadaal waa in laga taagaa waa in loo yeeraa dowladaha Israa'iil iyo dadka la dabar jaray u hiliya waa in loo yeeraa start this time marreexaan sano Israa'iil baana we're not Somalian we're not Darotengis they all let us down we have nothing to do with them we are Muslim our religion is a Muslim qofna ugama baxayno laakiin dhalashadayadu waa reer bani Israa'iil maqa Israa'iiliyiin muslima intii nabi ilaahay abuuray Israa'iil bay ka dhalatay muslim bayna ahaayeen sida loo ilaaliyo Israa'iil waa in adduunku loo ilaaliyaa sharciga Soomaaliya ma ilaalinayo qofka reer Jubbaland kaya nagama qabanayo haddaan Israa'iil hoos geli lahayn sidaan looma dilin this we are marreexaan sano Israa'iil saacadaan laga bilaabo dadkan haddaan Soomaalinimo kula dhalanay waa nalaadii xilaha isn't this Israa'iil baanahay haddaanu Soomaali nahay qofnoo darmadaan arki lahay jaasow Soomaali oo dhan jaasow baa nooga dabqaday jaasow ayay ohinta hooyooyinka iyagu dhibta Soomaali oo dhan jaasow baa nooga dabqaday jaasow isn no we are not Somalians we are Israelis this is our people rabbin Israa'iil baan nahay Soomaaliya safar baan ku nimid waana la dhalan maniin daarood maniin Soomaali Maraykanka haddaan applicationkayaga u geysanaynaa haddaan qiranaynaa inaan nahay Soomaalidu mar hore inoo sheegtay waa nala laayay oo nala midabta koore oo nala midab soocay oo aan dulqaadan marreexaan sano Israa'iil baana we are Israeelians we have nothing to do with Somali people manihin daarood yaa laydin qaldin dadkayga u ka kaca alxamdulilaahi maanta adduunka o dhan baan joognaa meeshaan idinkala soo hadlaya waa Canada Ohio annagaa iskale oy deegaan noo tahay waa booshi la dhihi jiray waa gado Ingiriis sidoo kale istaaga u taga communityga Israa'iilka ayaan ka tirsanna iyagaan la mid nahay sida Soomaalida sida yuhuudda Itoobiya ku soo dhuntay yuhuudda Itoobiya tagtay ayuu marreexaankuna u yimid manihin daarood manihin Soomaali waxay yihiin manihin we have nothing to do waan ooynay waan qaylinay waan baryootanay maxal ninka dalka haysta ee la farmaajaynayo waxba iskuma nihin asna waa Soomaali annaguna yuhuud baana yuhuud rabbin Israa'iil baana ilmihii nabiyana Isxaaq baana waxay carab u tahay manihin waxay Soomaali u tahay manihin waxay yihiin ashaadada noo dhaxaysa haddaan dadkaan la dhalanay dhiiggayagaa laga gudbi lahaa dhiiggayagaa laga gudan lahaa ragga iyaga la kacaystay qalbi dhagax ninka la yidhaahdo tuu dhigayay qalbi dhagax markii la kacaystay miduu dhigayay xildhibaan Sakariye miduu dhigayay qayraduu dhigayay baarlamaanku taay dhigaan yaa 7 walaalaha ayaa maqan
difaacda male dowlad difaacda male BBC du dhibkooda kama hadasho baarlamaanka Soomaaliya kama hadlo madaxweynuhu kama hadlo wasiirka arrimaha dibadda kama hadlo isakay marraxaan la dilay waa yuhuud la dilay allah ilaahay Soomaaliya in badan baad noo sheegteen reegada la dilay waa yuhuud la dilay annaga ya isaaqu rabbi Israa'iil baana isaaqu way dareemeen dhibkii loo geystay ayay dareemeen rabbi Israa'iil baana waryaa Soomaaliyaanay ha soo noqonina dalkiina goosta annagana naxaawiya eelbaana waana laga dhex shaqeeye Soomaaliyaanay waad saxnayd Soomaaliyaanay waad isku tashateen idinkaa naga fiican idinkaa naga hormaray idinkaa naga dadaalay calanka Soomaaliya annagaa ku jabnay annagaa naloogu hilinaynin ha ku soo noqonina balaayadu dhashay ha ku soo noqonina Soomaalinimadu way dhimatay annagay Kenyana duqaynaysaa annagaana lagu laynayaa annagaa daaroodku nagu dilayaa ha ku soo noqonina baarlamaanku kama hadlin walaalay waa la kacaystay Kenya kacaysatay ninka aad arkaysiin wiilka yar aad arkaysiin ee geel jira ee xabadda lala dhacayo walaalkay baa dhalay ha ku soo noqonina annaguna maanta ka baxan Afrikaan uraya ayaa saaxabada nala dhaca wax ka hadlaana ma jirto annagaa ku lugonay ha ku soo noqonina Soomaaliyaanay carara dhulbahantow ha ku soo noqonina isaaqa la heshiiya isaaqa walaalnimo la qaata gababiirsow ha ku soo noqonina at least gaalaydin ma imaanayso at least gaalaydin ma laynayso markaan Kenya mar dambena ma dilayso calankii Israa'iil markaan ka babino Jubaland waana la difaaci waana loo hilin magac baan yeelanaynaa dowladaha adduunkaana difaaci international shacabkayagu qiimo yeelanayaan isaaqow carara dowlad Soomaaliyeed ma jirto Soomaalida difaacaysaa ma jirto waad isku tashateen hubkii midaad haysatiin waa laydin aqoonsan yahay waana la qalday reegada waana la qalday reer Jubaland waana la qalday Jubaland Kenya ku soo duushay niman Itoobiya ka yimid baa ku soo duulay Soomaalida koonfur joogtaa danka malahan guryahoodii baa la qaatay baxdaa madaxa laga geliyaa Kenya lagu laayaa qori baa lagu hayaa calanka Soomaalida Itoobiyaanku difaaca Kenyaatigu difaaca Soomaaliya ma difaaca Soomaaliyaanay annaga marraxaan ninka dalka haystaa marraxaan yahay lagu sheegayo ayaana laynayaa oo xabadda saa loogu shabaaxaya carruurtayadii aniga idin la hadlayaa walaalay la kacaysta Soomaali waxa ku falina Soomaali ma jirto Soomaalinimadu waa dhimatay baarlamaanku xildhibaan Sakariye anaa dhalasho dadka la laynaya dadka lala tagay dhalasha isku xigaan ha u soo dhawaanina danka malahan saasuu jeesjeesayay qalbi dhagax oo hal qofa oo Soomaali Itoobiya saasay ugu ordayeen baarlamaanku markiiba waa gariiray waa hayan waayeen waa harsan waayeen markiiba dowladda Itoobiya la waxay markiiba mooshin baa laga qaaday 8 walaalahaya 7 walaalahaya iyo 7 walaalahaya gaala ka haysatay Kenya haysata rag iyo ruux nolol iyo geeri lama hayo wiilka walaalkayna Soomaaliyadan way daawatay ina gaara xabada loola dhacayo waa geel jire ha ku soo noqonina Soomaaliyaanay carara isdifaaca dhulbahantow waxaa loo laynayaa waa marraxaan waxaa loo qaranayaa waa marraxaan waxaa laynaya niman Maxamuud Saleebaana iyo niman Maxamuud Subeera ayaa gaalada keeneen ayaa gaalada nagu laynayaan carara raashiq saxaqo dhulbahantow carara godobiirsiyow carara at least nabad baad haysatiin
at least nabad baad haysatiin saacaddaa laga bilaabo Jubbaland waa Israel. Jubbaland is a part of Israel government. We are Israelis. Kenya and the Somalians are doing a genocide to us. They killing us. They killing us. Last 11 years, Kenya is bombing our people, our civilians, our children, our farmers. We are Israelis. We are asking. We are international crisis. We don't have no government. We're not part of Somalia. No one care about us. There is a genocide. Genocide going against the region. Jubbaland region. They took our farmers. They took our ocean. They took our boat. And Kenya is supporting them. Somalia doesn't care about us. Start this time. Jubbaland is a part of Israel. Our nationality is Israel. We flee war in Middle East. We end up there. We're not Somalian. We're a Marehan, Sade, Israel. We have nothing to do with the Somalians. We have nothing to do with the Taratara. They killing us. They doing a genocide. They killing my brothers. They killing my sisters. They killing our farmers. They took our land. We need help. Somali government doesn't care. Doesn't care our people who took in our life. Our land is occupied by Kenya government. And Somalian warlords. Nobody care about us. Please, we need help. We need international help. Well, our nationality is not a Somalian. We originally come from Israel. We flee Middle East war. We need help. They want to take our land. They doing a genocide our land so they can take they can take our land. We need help. Jubbaland is a part of people in Jubbaland are Israelis. Madame is killing. Kenya is killing. They kidnapping. They taking our people. They crossing the border. No one cares. Farmaajo doesn't care. The Somalian parliament doesn't care. Somalian people doesn't care. We are done. We are done. Enough is enough. Hello? Huh? So you wanna come home too? So you wanna come home and okay, come home. Okay. So take your Somali. Kata Somali. Kata. Can is a garbage. It's a garbage. It's a garbage. We are Israelis. And the international law will defend our land. Keep to your Somalia. You defend the Somali Ethiopian, but you don't care us. You don't care us. Start this time. Ghana will be another Somaliland. Ghana will be another Somaliland. Ghana, Jubbaland will be another Somaliland. We standing with Somaliland people. Yes, there is no government in Somalia. There is no parliament. There is no one protected. We don't care for much. We don't care parliament. We don't care Somalia. Start this time. Let's see it. We have to seek. We are Somali Israelis. Fuck Somalia. Fuck Darot. Fuck everything else. We're gonna do something. And I promise. We cry. You didn't listen. You will listen this time. I promise you. It's American airplanes. إلى يماذا Somalia gacanta waa ka baxday. Somaliland, take your bar. And I'm taking my bar of Jubbaland. Call whoever you want. Israel is much better than Somali government. Israel
is much better than Somali parliament. Israel will protect you. It will protect you. Somaliland, don't get back. Why not? Why not? Dubai, Bahrain, Kuwait, they become friends with Israel. Why not me? They have peace. I don't have no peace. Why? I have land. I have oil in my land. Shabal Dur. The 2 oil well is ready. Why would I have to beg? Why would I have to cry for a stupid African who doesn't help no one? Who doesn't care no one? Why would I have to cry Somali parliament? Why would I have to cry for much? Take that. Take that. And watch me. Watch me. Start this time. I'm a Somali Israelian. And my land, I can call whoever I want. I'm a Somali Israel. I need international help. I need the world to help me. I have nothing to do with Somalia. I'm not Somalia. I'm not Somalia. I have nothing to do with Somalia. I'm not Somali. F your flag. Take with you. Take with you. Take with you. You don't care me. I don't care about you. I have nothing to do with you. My land belongs to me. My land belongs to me. Belongs to me. My land belongs to me. Jubaland is mine. And I have to call. I'm a Somali Israeli. You, Somalian parliament, you are defending Qalbi Daga, which is Somali Ethiopian, and you're not defending me. Somali president, you're not defending me. Somali government, you don't care. Roble, you don't care. Farmacho, you don't care, my brothers. I'm a Somali Israelian. I am Somali Israelian. Yes. Start this time. Fuck Somali government, Somalian, whatever they are. Fuck the Daro tribe. Zakaria is a 7 years old Somalian, and he was just enjoying. Oh, they shoot like that. Thanks God. You were begging Somaliland. I promise you, Somalia, small pieces, I must cut. In badan baan wadani ah, in badan baan dalkan difaacay, in badan baa aabbahay dagaal u galay, in badan buu walaalahay dagaal u dhaawacmeen. Not anymore. Not anymore. Somalia, I don't care Somalia. I don't care. I don't care. No more Somali. Somaliland, take your part. Jubaland is mine, and I'm gonna get international help for my people. I will get it. We are Somali Israelian. Let's see, when I bring Jubaland to Israel, an American and Canadian, let's see how that works. I promise you, Somali, we cry for you. You see our people, how they killed us. I don't care. I'm not Arab, it's a garbage. F them. I'm not Somali, F them. Let Somalia gone. Today, I'm far. You kidding me? You go in election, you're enjoying, doorashad aadaysin, diyaaradaad raacaysin. 7 of my brothers is away. Baa la qaato Kenya qaadat. No one even talking. Wiilkay wiilkii walaalkay baa la dilay. You don't care. I don't care either Somalia. Somalia keliga ilaalinayo. Kenya dalkayga qabsatay. You don't care. You don't care. We are Somali Israelians. Jubaland, badbaan haysta, beeraan haysta, boodaraan haysta. Shabal Dur, labada xeelaa gaaska islaami. I'm a richest. I don't even need galgaduud. Dadkaygana intaan isugu kaysto. We are Somali Israelians. Qof kasta oo maraxaana, meeshaad joogtid, communityga yuhuudda iska register garee. We are Somali Israelis. We're not Somali. Haddaan Somali nahay, qalbi dhagax 8 nin oo mid dhintay oo laga tagay, qalbi dhagax baa ka qaalisan. Let them fuck whoever they support. Fuck Somali government. Fuck
Israel. So, good luck. Good luck. We are Israel. We are Israel. We are. See, the way Narada. This is Milka Waralke. See, this is Gelchiran. Unigara Gelchira. No one of Karla Maturo. Of Katam Maturo. Only Cheso. Only Cheso. Only Cheso. Only Cheso. This what makes me Israel. I want to sleep. Hada picture can go ya. Hadartan double can you that again now? Kata wa Kata. Waxaan garaya waa Kenyaat. Haddaan Soomaali ka mid ahay. Raalima laga noqon lahaa. Qalbi dhagax saas maa loo toogtay. Saas maa qalbi dhagax loo dilay. Qalbi dhagax oo Soomaali Ethiopiana. Baarlamaanka dhan waa la shadgareeyey. This is wiilka walaalkay dhalay. Waa wiilka walaalkay dhalay. No. Layla, you're just a bitch. Shut the hell up. Shut the hell up. Shut the hell up. And leave. Kalabad yay kalabad dash. Qof kasta Isaaq aad iyo aad baad u mahadsantiin. Raashaq Isaaq dalkiina goosta. Dalkiina haysta. U baahantay raac Isaaq. Godob birisi. Raac Isaaq. Dhista dowlad dhista. Nabad baad haysatiin. Soomaaliya annagaa ku la go'nay. Mar hore haddaanu tashan lahayn dhibkan inama soo gaareen. Soomaali ma jirto. Wax Soomaali la dhahaana ma jirto. Iyagaa ku dilaya. Dankaa ma lahan. Carruurtayada sida loo leynayo inaad dara laydin laaya maad rabtiin. No. Ka go'a. Idinkana shalay. Diyaaradihii shalay. Dowlad Soomaaliya idinku duqaynaysay. Baa maanta annagana nalagu duqaynaya. It's the same thing. They're all the same. Ka go'a. Soomaaliya dowlad kama jirto. Dowladda ka jirtaa lacag bay isku qaadataa. They don't care about us. Maxaad adiga u malaynaysaa in lagu gelayo? Farmaajo, they just silent. Baarlamaanka Soomaaliya, they just silent. Wasiirka amniga Soomaaliya, they just silent. No one cares. Why? Because we're Somali Israelis. Yes, because Marrahan is Israel. If we're related Somali haddaan wax naga dhaxay, Somali haddaan Soomaalina aqoonsan yihiin, way nooga hilin lahaye intaasaan mudaharaadeen. Hal gabadha noo hiliyey ma jirto. Ma garad hal noo hiliyey ma jirto. Intaasaa nala laynay. Hal daaroodoo noo hiliyey ma jirto. Intaasaa nala laynay. Soomaali ma jirto. Saacaddaa laga bilaabo. We have to seek international help. Yuhuud baa nahay. Soomaali Israa'iili baa nahay. Gobolka yaga iyo deegaanka yaga international. Waa in dad Yuhuuda sida Israa'iil loogu ilaaliya Talaabiid. Waa in loogu ilaaliya. Udii tashada qof walbo adduunka iska register garee. Marraxaan meel kastoo joogtiin iska register gareeya tambalka rabin Israa'iilka iska register gareey. Somaliland baad raadinayseen. Somaliland, thank you. Idinkana shalay nin annaga ma sheeganaya diyaarado dowladu madax ka yaala idinku leynay. Annagana maantana nin annaga ma sheeganayo diyaarado dowladu madax ka yahay ayaa nalagu yahay oo diyaarado nagu garaacaysa oo dadka laga leynaysa. I'm sorry Raashaq Isaaqo. I'm sorry. Gadabiirsayow Soomaaliya u soo carartaan meeshaan ma taalo. U baahantow Soomaaliya daarada u soo carartaan meeshaan ma taalo. Ha ku soo ordin dalkiina goosta. Ka go'a. Anigu dalkayga saaru difaacanayo anay jirtaa. Right now waxaan raadinayaa international help. In a minute ayaana sidii Israa'iil ciidamada loo dhig gaaskayga ugu filan
badayduna igu filan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ifkaa la isku yeeshee waxaan eega kala weyni aakhira markaan tago miyaan ina adeer dooni. waxaan halkaan uga baaqayaa beesha Mareexaan ee uu ka dhashay wiilkii yaraa ee kan aan anaguna ka dhashay dadka la laynayaana ka dhashay. qoryaha dowladdan isaga baxa, qoryihiina qaata, isku ilaaliya, meel dabadda aruuriya lacagta inta dabadda joogta qof walbow magaalo xaafaddaa degan tahay dadka yuhuuddahi tambal bay ku leeyihiin iska register gareen. genocide baana lagu samaynayaa. we are reer binu Israa'iil. Kenya naxasuuqaysa. Soomaali daaroodkay sheegayaan kamaana lamaana malamin daaroodkana sheegayaan loo keensaday oo nagu xasuuqaya iyagii baa naxasuuqaya. saacadda laga bilaabo 10,000 baana laga dilay. yaa nalaga dilin qof dambe. istaaga nin alla askariga Mareexaada dowladda ku jiro qorigaaga qaado gaba iska xaadir. inta international helbigu naga soo gaarayo gaba iska xaadir. Jubbaland iska xaadir. Mareexaan mudug iyo gabo iyo muxaarad iyo muxaafad kursi Soomaaliya uma baahnidin. idinkaa dowlada Jubbaland baad leedihiin. uma leedin. waxaad ku dagateen waa Soomaali baad madax ka tihiin. waxaana lagu laayaa waa Soomaali hala dhis. madaxweyne Soomaali annaga wax nooma qabto because annagu yuhuud baana. ayaga ayaa wax isku qabta. manihi Soomaali ciidankeeda ka baxa, dowladeeda ka baxa, Jubbaland difaaceeda isugu kala geey. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. saacadda laga bilaabo Jubbaland waxaa iskala Israa'iil. waa inaan iska kicinaa hubkaaga soo nalama soo kaxaysan. Maraykan iyo Kanadiyaan baan hadda keenaynaa.